kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa. barnaamijka falanqaynta jimcaha waxaannu toddobaadkan kaga hadlaynaa muran siyaasadeedka ku soo noqnoqday somalilankaasi oo qiyaastii 10kii sane ee u dembeeyey marba si u dhacayay laakiin ujeeddada guud iskaga mida. waxaana barnaamijka marti iigu ah maxamed jaamac axmed, waa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada, waxaase uu miiska ku fadhiya oo doodan uu kaga qaybgelaya mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye. waxaa ku xiga xildhibaan xuseen axmed caydiid, waxaa isaguna uu miiskan ku fadhiya mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee waddani. labadooduba waa sharci yaqaano, waxau naga mahad celinayaa wakhtigooda. maadaama komishanka ama guddiga doorashooyinka laga hadlayo, waxaan ku casumay barnaamijka guddoomiyihii ugu horreeyey ee komishankii ugu horreeyey somalilan sannadkii 2002 cabdilaahi cabdi xaaji cumar oo cabdilaahi jawaan loo yaqaano. ku soo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka falanqaynta jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o e. inkastoo muranku heerar kala duwan uu soo marayey, laakiin waxaa toddobaadkan ugu dembeeyey uu cirkays ku sii shareeray markii mas-uuliyiinta xisbiga waddani ay ku baaqeen in kulan ay isugu yimaadaan taageerayaasha xisbigu xarunta dhexe ee gobolka marooti ee uu xisbigu ku leeyahay. haddaba su-aasha ugu horraysa waxaan siinayaa xuseen axmed caydiid. xuseen, maxaa keenay iminka inaad ku baaqdaan isu soo bax? waxaan muddo la soconnaa horta sannad iyo badh ayaa doorashooyinka dib inooga soo dhaceen muran siyaasi oo taagnaa darteed. murankaa waxaan u nisbaynayaa dadku hadday shaqo galaan oo doorasho la galo waa la dhaliili karaa, cidi waxbay ka tirsan kartaa, eedaa la soo jeedin karaa, waa wax la eegi karo oo dee laga gungaari karo. xeerkaa tilmaamay waddada loo marayo. arrintii berigaa doorashadaa ka soo bilaabantay ee saluugaas yimi ee komishanku inuu dhinac noqday lagu eedeeyey ee madaxweynaha loo gudbiyey ee aanu madaxweynuhu marin waddadii xeerku tilmaamay ee ahayd inuu guddi madax bannaan u xil saaro oo waxay la timaado soo hesho riboor warbixintay keento uu ku go'aan qaato. sannad iyo bar madaxweynuhu taas u diidana. ninka la leeyahay dee waa u eexday komishanku waa isaga, waa madaxweynaha. komishankii maanuu beri yeelin, eediina laguma caddayn, ha jooga meesha uu bay noqotay. murankaas wuxuu inaga qaatay iyo siduu madaxweynuhu u hortaagnaa ee qodobkaa uu u diidanaa. qodobkaa tilmaamaya marka arrimaha kor ku xusan waa marka la soo eedeeyo la dareemo waxa madaxweynuhu magacaabaya guddi baariseed oo ka soo warbixisa si uu ugu go'aan qaato. markaasaa ina xadmeeyey ma garanaysa. sannad iyo marba inaga qaaday. siday doontaba ha noqotee layna soo dhexgel la dhammee heshiis baa lagu qoray, nooshin baa lagu heshiiyey in bal komishankiina la bedelo, ka dambena la kordhiyo oo 2 xubnood lagu daro oo labada mucaaradkaa loogu daro. beesha caalamka inugu dhexdhexaadisay madaxweynuhu markaaba niyad wanaag, madaxweyne muuse biixi niyad wanaag kama ahayn, waayo xeerkaa soo maray 5 wax ka bedel oo hore. wax ka bedelkii 6 ee uu samayn lahaa madaxweynuhu wuxuu xafiiska ka bixi maayo, baarlamaanka halaga gudbiyo. saxiixiisuu diidayey inuu ka muuqdo oo dabeedna uu ku yeesho saameyn ku yeesho mudanayaashiisa oo bahalkaas ku horgalo. golahaba iyadoo la gaarsiin waa tii la dilay, kulmiyaa dilay. ma garanaysaa mooshinka waa la liqay. haddana beesha caalamku ku maslaxday xisbiyada mucaaradka in doorasho lagu galo, aqbalay. kii cusbaaya la soo xulayey ee ay ahayd wixii marankii hore keeno dhan inaanu ka hadhno. 4tii jihe laga soo xulayey xaggii guurtida iyo 2dii xisbi mucaarid, 3xaasba way iska ilaaliyeen wax muran keena inay keenaan. madaxweynahay ka dhalatay. madaxweynahay ahayd inuu ku ilaaliyo xubnaha kale inay wax shuruudaha buuxiyey, ilan tiro uun maahe shuruudaha la socda. anigoo kale iyo kaadaaran dhamaysto, anigoo kale dee inuu ogolo xeerku eekada qof walba uma ogolo xeerku, anigaygana inuu ogolay. waxay haddii aniga la soo qoro dee inuu madaxweynuhu ugu celiyo siduu ugu celiyey xubintii hore ee gudoomiyaha golaha guurtigu 2 xubnood uu soo xuray hore siduu mid ugu celiyey xubintii foosi loo oran jiray ee weliba 2 munaasabadood madaxweynuhu uu ka sheegay inaanu wuxuu ku celiyi jirin oo ku ixtiraamay ee foosi hadlay. waxaan ka wadaa waajibaadkiisa ahayd, laguma dhaliilayo madaxweynaha, waajibkiisa ahayd xubintu uu arkay inaanay buuxinayn inuu celiyo. laakiin taa macnaheedu maaha kuwiisa inaanu ku eegin shuruudaha maaha. dee xubna aanu shuruudihii ku eegin, xubna aanu heshiiskii ku eegin, xubna murankii hore mid ka soo hadhay anigoo ixtiraam u haya inanta oo sharaf la ay tahay. haddana waxay ka mid ahayd komishan la eedeeyey oo aan arrintoodii la baarin, uu madaxweynihiisa hortaagay in la baaro oo aan lana beri yeelin, waxna lagu caddaynin. eekada 6dii hore dambi kuma hadhin oo iyadu beri kamay noqonin. waxa 6dii kala reebay baa iyadana reebaya moogta. xubnihii kale dhum way iska ilaaliyeen, madaxweynuhu uu keenay. markaa murankaa maanta
madaxweynaha soo kiciyey golaha geyntiisii baa timid maaha uun madaxweynuhu inuu dayra golaha ay maxkamadda isaga sharci ilaaliyaa koowaad ee dalka isaga ah oo ilaaliya ahayd oo hore loo ilaaliyo maxamed xaashi cilmi guddi diiwaangelineed oo u horreysay balaadaayar waa reference wixii la maray waddadii la maray baa sharci noqota maxamed xaashi cilmi waa la celiyey beri guddi diiwaangelineed iyo commission ahayd mooyaane kii ugu horreeyey commissionkii xigay labaad ilhaan maxamed jaalac baa laga celiyey oo daahir riyaal celiyey oo xisbiga kulmiye soo diray commissionkii maxaan ku rahdaa afraad ee imaka xilku ka dhamaanayo waxa laga celiyey maxamed cismaan fadar oo ay soo xisbiga wadani soo diray waxa lagu celinayaa waa xisbi baad ka tirsan loo aaneynaya madaxweynuhu imaka kanuu celiyey xisbi wadani buu aaneeyey baladeegada kuwiisa marka loo aaneynayo qofkii campaignka ku soo dhaweynayay qofkii ololaa u soo dhaweynayay qofkii kulmiyaynu lahay hortiina ka ahaa markuu qorayo madaxweynuhu dee markaa baleeg murankii halkaasuu dee ka abuurmaya maxamed jaamac waad maqlaysaa oo degeysanaysay maxaad ku jawaabaysaa waxaan ku jawaabayaa bismillahi raxmaan raxiim horta xisbiga waddani waa xisbi qaran oo xuquuqaad badan leh oo sharcigu siiyey lama diidana tallaabada ay hadda qaadeen ee ay dadka isugu yeedheen arrin ku xidhan commission la ansixiyey ma aha waxa weeyaan waa mid siyaasi oo isagoo awooddiisa horta uu ku eegayey bay ahayd sharcigana wax ka baxsan bay ahayd waxa weeyaan qodobka 10aad ee xeerka 51 baa tilmaamaya nooca soo baxa ah ee la samayn karayo iyo sifaha loo samayn karayo haddii ay iyagu doonayaan oo sharciga ilaalinayaan waxay weydiisan lahaayeen in ay tagaan xafiisyada ay khusayso oo ay weydiistaan inay dadka weynaha ku shirmaaha xaruntooda shir bay ku qabsan karaan shirarka cidda ku qaban kartana waa la yaqaanaa guddida fulinta hoggaanka waa la yaqaanaa tiradaas intay tahay laakiin intaan microphone qaato haddaan idhaahdo dadka weynaha somalilan ee caasimadda ku nool ee ayidsan xisbiga waddani hay isugu yimaadeen birtixeen xarunta xisbiga waa la garanayaa inay fawdo tahay waa la garanayaa inaanay shir xarunta ka dhacaya ahayn ay mudaaharaad tahay mudaaharaadkuna sharci buu u baahan yahay horta wax weyn taa way ka baxeen arrinta uu ka hadlayo ninka la yidhaahdo xildhibaan xuseen ka hadlayo ee la xidhiidha commissionka laba isaga khaldan maantaynu joognaa xubinta commissionka qodob baa tilmaamay 12 la yidhaahdo shuruudaheeda iyo waxa lagu xulo sida loo soo xulayo cidda soo xulaysa iyo inta ay marayso cid baa soo jeedisa cid baa loo soo gudbiyaa golaa loo gudbiyaa guddi buu hortagaa golaa ansixiya ama diida maalinta uu qofkaasi noqdo qof golaha wakiiladu ansixiyo xuseen ka mid yahay waxa weeyaan xuseen hadda oo aynu fadhino dastuurkii jabiyey hadda oo aynu fadhino xeeroosaadkii jabiyey golaha waxa weeyaan inta badan baa inta yar baa inta badan u hoggaansantaa go'aanka golahayiga wakiilada ka soo baxay oo aanan anigu u codaynin waan ku khasbana waan ku gowracnay waana ilaalinaya waana ku doodaya inuu yahay go'aan jiro sharciya waxa weeyaan wuu fadhiyey go'aankii golaha ku ansixiyey reeraac waa la soo jeediyey cid baa soo jeedisay waxa weeyaan golaha loo soo gudbiyey guddi baa loo soo jeediyey iyagoo isku soo raacay bay soo wada gudbiyeenoo golaha waxay yidhahdeen wuu u qalmaa in la ansixiyo waxa weeyaan golihii baa la hor keenay golihiina wuu ku qancay inuu la ansixiyo oo uu qalmo oo wax allaala wax dhibaato ayaanay jirin saasaa lagu ansixiyey horta maantayta halkuu taagan yahay aynu taagana waxaynu taaganahay qodobka 13aad oo ah sidee buu qofku ku waayi karaa xilka commissionka wuxuu ku waayi karaa shuruudaha halkaa ku qoran oo ah dee horta ha shaqeeyo marka uu shaqeeyo waxaa soo baxaysa partialitigiisa markaas soo baxaysaa markaasay iman kartaa inay cidi ka dacwooto markaasaa la odhan karaa musuq maasuq iyo eexbu sameeyey markaasay dacwoon karaan markaasaa la marin karaya waddadii iyo shuruudihii laakiin xubintii oo beri ah oo la ansixiyey oo muwaadina oo xaq u leh shaqadan inay qabato dee waxa weeyaan madaxweynuhuna kama noqon karo isna kama noqon karo in yaraan ka gudbo xuseen cabdilaahi horta inuu diin imaada laakiin mid baan walba idinku dardaare haynaga qofaynina hanay naga kooxaynina dawladda waxaan doonaynaa dhibaatooyinka muranada siyaasiga maaha commissionka oo qura laakiin murankan siyaasiga 2009kii bishii September 12keedii sidan oo kale ayaa xisbigii mucaaradka xilliga ahaa ee kulmiye banaanbaxu sameeyay xilligaas oo daahir yar madaxweynaha isla doorasho dib u dhacday baa laga mudaharaadiyay 10 sano kadib halkii baa la jooga marka waxaan rabnaa inaynu dadka ay wax naga dhaxlaan oo u iftiimisaan sharci yaqaanana waatin xildhibaanana waatin labadii xisbiye muxuu ahay mucaaradka iyo muxaafidkina waa ka socotaan ina kor eegtaan baan doonaya gudoomiyii ugu horeeyay guddigii doorashooyinka Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar Cabdilaahi marka si gaar ah ugu noqoto hay'addan commissionka bal dadka in yar u sharax meen ahayn hay'ad madax bannaan bismillaahir rahmaanir rahiim
way tahay hay'ad madax bannaan anu waxaan jeclahay labada xisbi dee dood bay leeyihin oo ninba aragti bay leeyihin oo ay ku hadlayaan laakiin waxaa in la mideeyey ee qof walba ku qasaba waa xeerarkaa lagu heshiiyey ee yaalla ee dalka u dejisan waxa weeyaan komishinka doorashadu waa hay'ad madax bannaan waa hay'ad qaran waa hay'ad garsoor waxa weeyaan 7 xubnood bay ahaayeen 7 xubnood markaa qaab lagu soo xulaa jirta qaabkaas shuruud buu leeyahay lambar 2021 ayaa cadaynaya waxa weeyaan in la qaybsaday 3 madaxweynaha keenayay 2 ururada mucaaradka markaa ay magala xisbiyada mucaaradka keena 2 guurtida 7 siyaasi ay magala sidii ku socdaan waxa weeyaan marka la soo xulo shuruudaha qofku reebaya oo kamid ah inaanu xil qaran oo weyn xil qaran inaanu hayn inaanu shaqaale dawladeed hayn inaanu dalka jumhuuriyadda dawladda meel kaga jirin waqti xadidani way jiraa oo meelaha qaarkood 2 bilood ugu dambeeyay inaanu shaqaale dawladeed xilka hayn mushaharna aanu qaadan annaga komishinkayga markaa nin baa laga reebay shuruudahaasi qabteen haddana 4 iyo 5 iyo 40 cisho kadib baana laga daba keenay waxa weeyaan markay ku soo ururaan madaxweynaha loo qoraya madaxweynuhu markaa qof marka la keeno isna baarlamaanka ayuu u gudbinaya madaxweynaha gacantiisa hadday ka baxday baarlamaanka tagto ma soo ceshan karo xubnihii awoodda kala saaridda iyo ansixinta iyo reebista iyo gudbintaba intaba waxaa le golaha wakiilada ee labadan mudana ka tirsan yihin anigoo qadarinu haya aad baan maanta runtii uga xumahay inay iyagoo labaduba waa 2 garyaqaan kii aanu ku soo saaray wakaa imika waan soo qaatay 2005 parliamentary electionkii waa kii go'aanka waa tii reportkan ka qoray kana waxa weeyaan kii hay'adii markhaati furka Oslo University Norway markhaatigii ka yimid ay qoreen labadaasaan tusaalaan soo qaatay waa xubnihii ugu dambeeyay anigu aan aad ugu han weynaa labadooba tartankay ku jireen waxa ku jira ilaa dhowr iyo 6 iyo 30 jaamiciina oo dhalinyaro u badan marka runtii waxa weeyaan waxa baarlamaanku geeyo qasab bay nagu tahay baarlamaanku wuxuu leeyahay marka loo keeno madaxweynuhu guddoonka u gudbiyo waxa loo gudbinayaa guddigii kala eegaysa kala reebaysay guddigaasi markay eegaan shuruudihii way reebayaan ninkii aan u qalmin waatay imika oo kale miyaan la oran karin imika oo kale reerihii baa door ku leh oo waan kuu soo wadaa reeraha waan kuu soo wadaa waxaa nasiib darro ah doorashooyinka ugu horreeyay waxay noogu hagaagay 3 doorasho hore la amaana aanu qabannay qabiil baan jirin imika xisbiga hab dimuqraadi ahayd 6 urur baa lagu tartamay markii 3 xisbi ahayna 3 xisbi lagu qoys baa 3 ruux oo 3 qoys 3 xisbi kala jiray si daro wixii qabiil bay naga galeen qabiilkuna ma laha iyo xisbi siyaasi in la wadaba iyo badrool marka waxaad arkaysaa waxay ku dhaxdhacday wixii hoggaanka xisbiyada iyo xukuumaddiba inay ku dhex milmeen reeruna dudumaha daadibka tira duduma dhooba ka mayd mid dhamaanaysa soo xurmayso waa basasha la dhilayo way ilgowt waxaan daawanay xalay tayada loo jawaabayo beela ku taageerayaan buur madow hadalkiisa waliyan beesheeda raacsan laguma adiyoon karo hadaan naga aamusay waxaan sameeyna xisbiyadu inay halka dadka gaarsiiyo waa nasiib daro waxa ayana tusaale ka hadlaya wixii xajiin keenaya marka xubnaha la xulayo madaxweynaha xisbiga in la iska ilaaliyo wanaagsan laakiin mar haday dhacday sharciga loo footeeyay ee lagu ansixiyay way loo hoggaansamaa cidii aan ku qanacsanayn waa in maxkamadda dastuuriga ama maxkamadda sare waa in uu qortaan hebel way duraan hebel baan diidanay waxa ku diidan marka taasay ku ansaxay baan doonaynaa siiyo Xuseen adoo kasoo ururnay halkaad ku darsanaysa laakiin su'aasheedu waxa weeye yana gaar commission u qaadanin golayaasha dastuurka wuxuu siiyay idinkiina fadhiya wuxuu idin siiyay 5 sanadood madaxweynaha wuxuu siiyay 5 sano golaha deegaanka 5 sano guurtida sidaas la mid ah laakiin waxa muuqata gola kasta inuu si dhaqanay inooga noqoto inuu muddo dhaafo miyaan la oran karin waa lagu dadayaa inta kale dhuuxa muranka siyaasiga wuxuu ku qotamaa inaanay xeerarkii doorashooyinka la xidhiidhay lagu dhaqmayn oo madaxweynaha 8 sano fadhiyaan ugu dambeeyay madaxweynihii ka sii horeeyay 8 sano isna fadhiyaan ma 9 sano marka taasi miyaanay la oran karin waa rukunka soo celcelinaya muran isku nooca 10 sano kadib Xuseen processkii buu maray oo guddi buu maray oo guddigii baa shuruudihii tiruu buuxiyay oo gudbisay oo dabadna golina sidaas ku ansixiyo sidaas u fir ku noqday imaka haddaad xisaab isu geegiiso oo aad meel dhexe ka soo qalado oo aad si waliba u ka soo qalado oo dabadna natiijadii ka wadaweyn soo baxdo oo tiraahdo taasuna ku xisaab qaadanaya natiijada ayaan ku xisaab qaadanaya halkay ka qaladantay in lagu celiyo fiican ma garanaysa
waayo xisaabtan waa rong iyada khalada ma garanaysa jawaabtan soo baxday waa khalad oo meel bay ka soo qaldantay guddi hoosaadkaa waxa ka soo baxay warbixin beena go'aankii golaha iyo xildhibaanadiina waxa lagu meel marsiiyey oo lagu jujuubay mar haddii guddida ay go'aankeedii sidaa yahay loo codeeyo qofaan shuruuddii buuxinaynu wada ognay shuruuduhu waxay tilmaamayaan qodobka 13 faqradiisa 5 waa inaanu ka mid ahayn urur xisbi siyaasada urur oblig xisbi siyaasadeed kana madax bannaan yahay hadda kana madax bannaan yahay ereyga kada madax bannaanida ah ninka ololeeyay ee xisbina uu ololeeyay ee weliba hadallada laga haya ay ka mid tahay doorashadan maaha ta dambaanu wadani soo baxayn ta dambe ayaanu wadani soo baxayn laga hayo qorantay oo la hayo isagoo hadlaya codkiisii ka hadlayana kulmiyeenu nahay madaxweynuhu hor fadhiyo isagoo kulmiyeenu nahay ee ololeynaya xubintaasi shuruudii bay buuxin maadaama shuruudaasi maqan tahay eegada golaha la horgeeyey wuxuu ku bineeyey shuruudda ayuu ku bineeyey go'aankiisii waxna waa u heliyeen kale oo ka wada warhaysaan dabeedna dee wax kastoo baadila wixii lagu saleeyaana waa baadil waa null and void baan qabaa waayo xubinta aan shuruuddeedii buuxina ee aan weliba aqoon la'aan loo ageynay iyadoo la arkayo iyadoo la hor keenay iyadoo la tusay iyadoo tuu madaxweynuhu celiye ay ka dardar badnayd oo ka kaambay badnayd eega daadeer haddana meelmarinteedu qaarna saa lagu celiyey dee ma ahayn shuruud la iluusan yihin oo inoo dhuubatay maaha marka waxaan qabaa maadaama shuruuddii ogaan loo jebiyey waa shuruudda lagu eegi lahaa hadduu jebiyo marka dambe haddaanu marka hore jebin maxaa lagu eega haddaanu marka horeba jebin maxaa lagu eega tan dambe waxa weeye waa dhab oo doorashooyinkaa dib u dhacayaa geedi socodka dimuqraadiyadda waxay ku yihiin halis way ina burburiyeen labaynu magac ku lahayn nabadgelyada iyo geedi socodka dimuqraadiyadda oo doorashooyinku kow ka yihiin ayanu laynagu ammaani jiray laynagu majeeran jiray oo aynu kaga duwanay afrika inteeda badan iyo wadamada badan oo caalamka ah tii meesha way ka baxday anigu taa inta badan sababteeda waxaan saaraya waa komishanka doorashooyinka qaranka u xilsaaran doorashooyinka horta waana hay-ad madax bannaanaatee hay-ad xukuumadeed weeye shaqadeeda iyo maxaan ku dhahdaa arrimaheedana ku ilaalinteeda madaxweynuhu siduu hay-adaha kale xukuumadeed ugu ilaaliyo ku ilaalinteedu leeyahay inay gudato xilligeeda si timely ah dhaqaalaha haddii laga doonaya isagaa laga rabaa oo dee wixii kaga baydha isagaa taalla xisbiyada uma taallo wixii caalamku inagu caawiya waa halkeeda kuwii ay u qabanaysay sii walaa wahayd hadday heshiis noqon waayeen mana qayb ka mida qayb taasna waa tan horena kaaga soo hadlaan kuri madaxweynaha ku eedaysnaa oo muranka inagu dheereeyey waaye bismillahi raxmaan raxiim arrinta komishanka haddaan intaa xuseen axmed ka daba tago cidda doorashada diidan ee ay doorashadu u qabsoomi la'dahay ee ay ka suurageli la'dahay waa waddani sababta waxay tahay doorashadii baad ogeyd golihii madaxtooyada komishinkay diideen mar labaad baa la yidhi doorashada hala qabto komishinkii bay diideen iga bedela waa laga bedelay kii labaad bay diidan yihiin miyaad maalin kali eeg madaxweynuhu wuxuu diiday waxay diideen waxa la yidhaha wuxuu keenay madaxweynuhu saamigii waxa la yidhaahdo dumarka wuu keenay iyagoo ka hadlaya maad aragta weligaa dadka laga tirada badan iyagoo ka hadlaya maaragta inantii keliya haydee ku jirtay sababtay u daba socdaan waa xidhiirka ka dhexeeya iyaga genderka oo dhibaato ah oon meesha olwey okay waxa la yidhaahdo madaxweynuhu wuxuu sameeyey hulmiye wuxuu sameeyey dumarkii waxaanu komishinkii baan keennay saamigii waa la fulinaya hadda golo hor yaallaa waayahay intaa waxa weeyaan wuxuu ku xoqanayaa doorashadii baa waddani ka baqayaa haba yaraatay or qof waxba ma bedelo 7 xubnood weeye qof wax ma bedelo doorashadii ma qabsanaa go-aanku waxa weeyaan waa guddi waa juuri go-aan baa waa collective go-aankoodu waxa weeyaan qof wax ma bedelo ma samaynaa doorashadii ma ogola waa kow doorashada dibadhaceeda waxa weeyaan way kala duwantay marka koowaad horta awooddeena dhaqaaluhu qayb bay ka tahay isma maamulee waa layna maamulaa dhaqaalaha aynu ku bixinno innagu haddaynu haysanno maalintaynu doonno intaynu go'aansanno ayaynu iska bixin karnaa iskuma filin waa layna maamulaayo caalamkaa lug inagu leh lug siyaasadeed oo dee caalamku leeyahay way inagu jirtaa waa taas waa qodobka labaad bisay la'aanta axsaabta oo hanan kari waayey mandatekii la siiyey ummaddu siisay oo qabyaalad iyo reera ku dhex milan oo maalinta la yidhaha doorashaha la qabtaba waddani intuu tago boorama wuxuu odhanaya saamigii maxaa ka yeesheen dabadeedna waxa weyan jiq bay noqonaysaa reerba halkaa u boodaya waxa weeyaan mushkiladda taagan ee ugu weyne waxa weeyaan
bisayl la'aanta axsaabta oo aan u bislaanin waxa la yidhaahdo inay hantaan wilaayaddii iyo wixii la siiyey mandatekii la siiyey inay ummadda ku matalaan oo iyagoo talada ka goodo reerihii baa gacanta ku haya iyaduna waa qodob kale waxaa kale oo iyaduna qabyaaladda oo iyaduna mushkiladeeda leh oo waxa weeyaan axsaabtii waxay u abaabulan tahay reer haddii lagu yidhaahdo ma wadani baa tahay waa lagu garanaya reerkaa tahay haddaad lagu yidhahdo ma kulmiyaa tahay waa la garanaya reerkaa tahay haddaad tidhahdo ucid reerkaa macnaha waxa weeyaan in yaroo ilaahay uun dee daayey mooyaane oo dee sharaf le dee dadku ma wada xumee oo axsaabta ku kala jiraa way jiraan laakiin dadka u codeeya ee bayska u ahay waxay noqdeen reero ilaa taa laga gudbo oo reer hebel baa meesha haysta madaxweynuhu uu noqdo madaxweyne jamhuuriyadda somalilan leedahay uu noqdo oo loo arko oo aan u arag waxa la yidhaahdo qofku inuu yahay madaxweyne reer hebela waxa weeyaan mashaakilku wuu taagnaanayaa doorasho la qabtaana dhibaatay dalka gelinaysaa waxa weeyaan waxaanu diyaar u nahay oo goluhu diyaariye wixii xeerar ahaa waa saami qaybsigana waa laga heshiinayaa badda ku beegan ku duubani waxa weye waa ta reeraha waynu ka furfuraynaa laakiin waxa weeye maanta 100% doorashooyinka waxaa diidan intii dowladda cusub la magacaabay waa wadani oo ku duuban waxa la yidhaahda khadar ha la bedelo cabdullaahi ha la bedelo khadar iyo cabdullahi guddi bay ka mid yihiinoo waxa weyan waxba awood ma laha maxamedo sida iminka xuseen ku doodayo haddii xubintii laga shakiyey ama hadal ay soo qaaday hadal ay yidhi iyo caddayme loo keenay idinku xisbi ahaan maxaa ku faraysaan muranka miyayna ka wanaagsanayn inaad markaa xubin kale oo isla halku ka soo jeedo oon eedaysnayn keentaan horta waxa weeyaan xeerku rabitaanka qofka maaha waxa weeyaan xeerku wuxuu leeyahay waa in aanu u haynin xisbi ama urur wax xil ah wax allaala wax xilahoo u hayaana ma jirto waxa la yidhaahdo wax xubin ah oo maanta xisbiga ah waan ka amsnaacay cabdillaahi xuseenow wax xil ah oo uu cid u hayaa ma jirto qofku wuu aaminsanaan kara xuseen wuxuu ahaa kulmiye wuu ka tegey ma aaminsana wuu ka tegi karaayo siyaasaddaba intuu ka baxaba halkaa istaagi karaa muwaadin ba halkaa taagan buu noqon karaa sidaa daraaddeed waxa weeyaan ninkaasi waa muwaadin xaq u leh inuu shaqadaa qabto wax shardi oo ku jabanina ma jirto halkeena ku soo laakiin aan siiya cabdillaahi anigu dhex geli maayo muranka maaragtay labada xisbi ka dhexeeya waxaan se ka hadlayaa wax baarlamaan ansixiyey iminka waxaan sheegay baarlamaanku waa hayadda ugu sarraysay sharci deji dalka baarlamaanku markuu waxa ansixiyo oo isku raaco de waa sharci buu noqonaya waxa weeyaan haddii taa la saluugsan yahay dee laba yar waa afkay ka weynta in la yidhaha baarlamaanku wuxuu ansixiyo waa xaaraan waa in maxkamadda la daga xeer baan leenay maxkamadda xisbigii hadduu ay ka dacwoonaya amba qof maxkamadda dastuuriga ama maxkamadda sare ayaa burin karta wixii loo hayo in kaa la mariyo waad weydiin in kaa la mariyo ade dalkeena iskaan ku tay foolxumana way nugu tay haddii ay maalin walba 10 sano kadib halkan oo kale waa la mudaharaaday 2009 kulmiye mucaarida mudaharaaday cabdiraxmaan oo gudoomiyaha xisbiga wadaniga golaha wakiilada gudoomiyaha uu la socday u cid baa la socday labada xisbiba saasay meel xisbiga u cid buuha saasay labada xisbiga maanta 10 sano kadibna waa la mudaharaadaya ma mudaharaadaysaan iyo mudaharaadaynaaba la isku haya Somaliland oo marka hore aan dunidu aqoonsanayn nabadgelyadeeda gobolka ku taala halis badan jirto in xagga shuruucda isha laga laliyo ama lagu dhaqmi waayo ama la isku ixtiraam waayo waa ka jawaabaya khadar waxa weeyaan horta mudaharaadka markuu habooyay xisbiyadu xaq bay loo sameeyaan laakiin procedure loo maraa jira wasaaradda arrimaha gudaha ama deegaanka marka lagu sameeyo waa in waraaq loo qoraa waxay ka cabanayaan maali hiblaayi halkaas xisbiga soo maraya waxaasaanu ka cabanaynaa halkaasaanu ku dhaqaaqaynaa halkaasaanu assemblyga aanu isugu ku dhamaysanayna security ciidankii noo keena qaabkaasaa la maraa xisbiyadu waxay xaq u leeyihiin xarumahooda inay dadka ku shireen hadlaan laakiin ka hor waa inay sii sheegaan marka wixii oo dhan baa ah maaragtay wax walba madaxa lagaga fadhiisanayo oo sharciyaddii aynu dejisinay ayaan la raacayn marka anu waxaan ku talinayaa sharciga wixii wax la qabanayo waxay keenaysaa waxay dhib leedahay marka wax lagu dhawaaqo taa imaka maxamed shaac sheegay mudanabku waxa weeye wixii qabiil baa laga dhigay xisbiyadii qabiil baad arkaysa oo ku taagan oo magacyadii reeraha ree hebel kursigaasaa la siiyey ree hebel baa halkana waxay ku dhisayeen kambalid waa aarin aad u foolxun bari dhaweyd waa tallaa anugu xisbiyadiisa waxaa nin tol wanaagsan wada doona tollaan buu dhaxlaa waa kulmiye ka daaya matal waxaad eegaysaa xisbiyadu maanta doodkaa kelimayna xisbiyadiisa u dhisayiin oo way ka duwantay tani laakiin waxa weeya in la minimays gareeyo amba la joojiyo habku dhaqanka la dhex gelinayo dimuqraadiyadda qabiilka waxay keenaysaa reaction xun tan imaka eeg nin baa hadda la isku haystaa gabadha mushkilada weyni kama taagna waa riyan raac dee maanta waa komishineero waa la ansixiyey nin xaq u lahoo ka saari karaa madaxweynehan ka saari karin
maxkamadun baa ka saari karta loo ashkito oo go'aan gaari karta marka waxa weeyaa wixii markaa doctor Jabeer waxa la reer baa daba joogo xalay waxa daawaray buur madow oo de wuxuu ku hadlay qabaayil eedeynay haddana maaragtay leeyahay go'aan reerku u dhayay xumaan bay keenaysaa marka ummadii shicibka ahaa ee publicii baa la sumaynaya dadkii ehelka walaalaha la isku diray Xuseen Madoonaan weydiiyo Xuseen haddii imika tusaale ahaan halkana waynu ku soo dhawaanana miyaan la oran karin way laban laabatay qabyaaladii marka asxaabta loo eega hab dhaqanka socda Xuseen anta hore wax ka yar kaga yar noqdo horta barnaamijka iyo mudaharaad waxaan dee lagu baaqay xisbigu sameeyay ma ahayn wuxuu ahaa xafiiskiisii buu dadkiisa ugu yeeray xafiiskiisuna meel loo fasax qaadanayo maaha waa xafiis registerada diiwaan gashan inuu ummadiisa iyo taageerayaashiisa wax ku gaarsiiyeen oo madax banaan yahay weeye marka horta tal iska hortaagan waa taa kulmiye weynu ogeyno garoonkii ka soo horeeyay xaruntiisa inta basas lagu soo guro oo la dhigo oo stage halka laga sameeyo platformkii laga hadlayay ayaa mararka qaar kood waliba laga soo dhaqaaq halkan anagu waanu dhaqaaqayna ma nooran mudaharaad baa la sameeyaa ma nooran xafiiska la isugu yimaadaan war baa loogu sheegay marka horta tal iska hortaag ma qaadan wax sharci u qaadan ma jirin xafiiskiisu ugu yeedhay dadka maantana xafiiskiisu ugu yeedhanaya barhina waa loogu yeedhan karaa xisbi walba maxamed hadaad maalintaaba xisbigu isagoon qaadanin uu mudaharaadii xukuumad jirto oo sharci loo boolis lina joogto maxaa wadani kaga duwan yahay kulmiye anu kuma oran kaasina sharci baa kana waa sharci kuma lihi waxa weeyaan barasharka uu xisbigu sameeyay ee sharciga ka baxsan haduu shidee sharciga ka baxo sharcigu ka baxay maalintaana anu sharciga ma husanba inuu sharci ka baxayo inaanu ka bixin qofku waxa loo ogaado markuu sharciga ka baxo ee markuu farka galo habeenkii baa la xidhxidhay dadka oo la sii xidhxidhay wuxuu ayugu ku xidhay oo ka daba tagay waliba afiyeenkoo la xidhay sidii soo baa lagu daray habeenkii baa dhagaxan la dhigay habeenkii baa xafiiska lala sii wareego tigna ka la dhigay marka horta ma sharci darray ku hadleen mise sharci bay ku hadleen bal lama sugin moogtay maxamed qodobkan uu leeyahay shuruudda ku sheegayo waa inaanu ka mid ahayn xisbi iyo urur midnaba siyaasadeed oo kama mid aha buuri maxamed cismaan fadal isagoo risaan gareeyey oo miiduhu qoray oo xubinnimadii iyo xisbigiiba ka baxay ayaa loo soo magacaabay commission waa la diiday waxa lagu qabtay oo la mari waayey kana madax bannaan yahay asaa la yidhi taasaa qabanaysa kana madax bannaan yahay maxay u qaban weyday cabdirashiid riyara wasiir buu ahaa golaha dhexe ee kulmiyana uu ahaa waa ka hadlaya kulmiyeenu leyle ee aynu fiidiyoogiisa aan ka tusi karo imaka mobilkayga ka tusi karo isagoo leh kulmiyeenu leh aan ka tusi karo meel kursi gareeyay lama hayo ilaa imaka golaha dhexe kaarkiisiina waa taa dal soo sawiro miidaha la soo dhigay isla sawirkiisa halkan ku waaya marka ninka caynkaasa cidda isku adkaynaysa horta iyaga dee horta doorashadiida maxkamadda waxa ugu qoran taas waa ishu kale maxkamadda lafteeda dii calaamad su'aal saaran ma inoo dhisantay markaas laakiin maxkamadda lafteeda ayaa kalsoonideeda ummaddu yaa garsoore maantana la magacaabayo berritana la eryayo laakiin wasiirka cadaalad markaad ahayd gud xuseen soo sidaasun maxkamadduna umay dhisnayn shuruucduna umay dhisnayn sidan wax waliba may ahayn xubnaha komishinkuna goobaha kamay kala imanayeen dastuurka la furo oo hay-adaha la kala madax banneeyo oo hay-ad walba arrinkeeda loo madax banneeyo oo ay mid walba mustaqillo u shaqaysato eeka daadeer la saxmi maayo walaal horta xildhibaanku wuxuuna gaarsiiyey waxba ma jiraan qodobka maalin dhaweed waxay ku baaqeen shir qaran waad arkaysa shir qaran waxaa loola jeedaa waa reerihii baa yaa loo jeedaa 98 baynu ka gudubnay shir beeleed dastuurkan aynu samaysanay qodobka 37 wuxuu leeyahay qarankan soo dadka shacabka Soomaaliland ilaahay karaamu siiyo wuxuu ku maamusay qaran waxa uu metelaya golayaasha qaranka ee jira golo kale iyo shir qaran oo kale oo horta dhici karo iman kara ma jiro waxa weeyaan hay'adii doorashooyinka wada dhaleelay waxa yidhaahdeen ma jirto hay'adii sharci dejinta wuxuu ku yiri ma jirto hay'adii garsoorkuna wuxuu yiri ma jirto maxaa jira hadaba in isaga weydiino waxa weeye halkan ay ku caddahay qodobka 13aad bay ku caddahay sababta maanta Cabdirashiid xilka looga qaadi karo waa maxay waa isagoo shaqo gala waa maxay waa isagoo oo sameeya impartiality iyo partialitysi macnaha wax eex sameeya
oo musuq maasuq ku kaca markaasay xaq u leeyihiin inay shuruud dee goorma waa markuu shaqeeyo haddaana marka hore jirin waa marka shaqeeyo haddaanu marka hore buuxin laakiin waxaa doonaya xusin imika wada dhaliisaan tusaale ahaan waxay jiraan waxa ka khaldanaadaan ama waxa ka dhaliil hala yeeshaan laakiin soo waxa haddana sharciga inoo jira intaasu ma waxaa inoo jira sidaa ha ahaado sixid buu u baahan yahay waxaanay u shaqayn laayeen murankan u bixilaayo u soo noqnoqonayaana mar walba ciddii talada haysa sidaa ku haysa jeclaytaa sidaa ku hayso ee jeclaataa ciddii dabadda u baxdana way u muuqataa ma garanaysaa marka waxa weeye waxa inoo muuqda hay-ada mar walba meel uun wada maraa oo aan isjeegaraynayn oo waxaan muranka dadka u soo saaraya ee makhaayad walba geenaya in lagu murmo hay-adihii baa shaqadoodii gudan karaya anugu laba meelood baan saxaya mid waa komishinka doorashada midna waa hay-adaha qaranka dhisan ee baarlamaanka labadan xubnood ka nagala joogeena komishinka doorashada waa hay-ad madax bannaan xukuumadda kuma tirsana way ka madax bannaantay waddaa dhegayso adeer way ka madax bannaantay tusaale waxaa kuu siya sharcigu wuxuu leeyahy waxaa ku qoran waa hay-ad madax bannaan sina looma faragelin karo ma garatay aniga markaan komishinka geliyey maxamed xaaji ibraahim cigaal baa ayaa magacaabay allah u naxariisto waxa markaa maanaan u axanayn ninka haddii 6 xubnood markay yimaadaan cid kasta ha keento 7 xubnood ee la dhaariyo kitaabka ay mareen iyo xilka ay hayaan waa in lagu aaminaa way qofku maaha neef xolo lumaya kitaab buu maray iimaan buu leeyahay diin buu leeyahay ka diidaana waxanba ma aaminsan waxa weeyaan markaa xilka ay hayaan waa in lagu ilaaliyaa xisbiyadu wixii gefa iyo xukuumaddiiba madaxweynu mid buu ku leeyahay ma xukuma oo ka madax bannaayo komishin wuxuu ku leeyahay hadday xadgudbaan guddi baadhiseed inuu magacaabo guddigaasi ay soo taladii keenaan marka uu baarlamaanka u gudbiyo baarlamaanka cod u qaado midunbaa isaga looga baahayay security-ga xagga amniga xukuumadda iyo bajad wixii looga baahdo inta kale waa laga madax bannaayahay waxaa yimid tan xubnaha lagu murmayo dee waxaa la yidhi war haddii meeshii dee masaajid laga qayliyo haggee loo kaca baarlamaankii waa ciddii kala reebaysay iyagiiba ansixiyey majority xaddaafi weli waa go-aankeenu ka ugu yar baa 50 cod helay 4 baana joogay marka gudoomiyaha laga reebo halka raaci waxa weeye institutionada sameeyay dalka ka jira way la aaminaa wala uu kalsoonaa cidii wax diidaysaa hadurtaa ashkatood haddaan niraado madaxweyne maaha maxaan ku leeyahay maxkamad maaha baarlamaanka wuxuu gaaray waxa maaha we are nothing marka kulliga waxa weeye inuu xamdiin marka xuseen adoo soo koobaya xal maxaad u aragtaa kelmadda xalka anigu xalka waxaan u arkaa xubintaasi anigu xal waxaan u arkaa xubintaasi may buuxin shuruudeedu waxay ku dhisantahay ansixinteedu waxay ku dhisan tahay warbixin baadila ayaa ilaa ima ku dhisantay madaxweynaha oo tusaaleeya oo yidhaahdo war sharuudda maan ilaalin markii hore maan ilaalin waanay kugu sugan tahay istiqaalad bixi meeshuu doona ee kale wasiir ha ka dhigto laguma haysto xilkii kale uu dhiiba ha u dhiibo ma garanaysaa inuu madaxweynuhu fududeeyo halkaas oo hawl yarayo iyo inuu isaguba risaan gareeyo oo qaranka dhibaatada ka dul qaado labaduba way keeni karayaan haddii se lagu talagalay inay dee murankaasi jiidaado oo dhagaxii lagu gudban uu noqdo oo amba doorashooyinku hays liixaana ku sii joog ay noqoto ama kuwii kuugu shubi lahaa ha noqoto ay noqoto dee waa taa kumaan darin maxamed waan soo ururinaya xalku waxa weeye xisbiga waddani inuu ogolaado komishinkii oo aynu doorashada u dareero oo ay muranka ka saaraan inay doorasha inoo qabsoonto xubinta uu ka hadlayo qodobkaa 13 baa sheegaya marka uu shaqo galo way soo dacweyn karaan madaxweynaha guddi u saaraya golaha lagu celinaya golaha waxa saasi ku dhamaanaysa waxa la yiraahdo maanta inta waxaynu u baahanay doorasho inaynu qabsano waynu ku ceebaysanaa golaha wakiilada inta ay fadhiyaan golihii deegaanku inta fadhiyaan cidda ilaa iyo iminka 3 sanadood ee ugu dambeysay hor fadhidaana waa xisbigan waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin